shacabka ku dhaqan caasimadda Puntland ee Garowe ayaa aragtidooda ka dhigtay nooca xildhibaan ee loo baahan yahay inay ku metelaan aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo shacabka Garowe ay baaq u direen xildhibaanada baarlamaanka Puntland xildhibaan nooce ay Puntland u baahan tahay sanadka in loo doorto xildhibaanada aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud Faarax oo ka tirsan dhalinyarada Puntland waxay u baahan tahay xildhibaan Puntland nooceeba ku metelaya dawladda federaalka anigu waxaan qabaa qof u shaqeeya Puntland iyo dawladda federaalka isku xira runtii aan lacag noo soo doonan iyo dhaqaale baaqna waxaan uga dirayaa baarlamaanka Puntland oo aqalka sare soo xulaya iyo madaxweyne Deni inay dad karti leh oo aqoon leh oo dhalinyarada iyo haweenka siba haweenka Puntland iyo haweenka Soomaaliyeed baaq baan u dirayaa in qoondadoodu ay geedgo'an noqoto waxaan ognahay haweenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka noogu jiraay waxayna tareen wax wanaagsan bayna tareen waxay noogu dhigmaan deegaamadii bay noogu yimaadeen waxbay noo qabteen boqolkiiba boqol madaxweynaha Puntland iyo xildhibaanada waxaan ku codsanayaa in aqalka sare loo badiyo haweenka Soomaaliyeed aad waasad bismillaah awlan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Aftaan Maxaa Faarax haddaan ka jawaabo su'aashaas xildhibaan noocee ay u baahan tahay Puntland kulli bisaan ognahay xildhibaanku process ku soo baxay inta badan waxa weeye processku waa hor ku soo bixi jiray mise hadda mid ku soo baxay waagi hore oday baa soo dooran jiray laakiin hadda wuxuu uga duwan yahay erga soo dooranaysa sida am garanaysa ay guddigu soo saaray 100 ergo ala xildhibaan soo dooranaysa marka waxaan rajaynayaa xildhibaankaas wuxuu daacad noqon karaa markay ergadaas noqdaan dad daacada oo ma garanaysa laaluush ma garanaysa haddii dadkaas xildhibaanka ku soo baxo laaluush ergadaas ay dalbadaan laaluush oo ma garanaysa xildhibaanka qaab lacag ah uu ku soo baxo markaas waxay noqonaysaa xildhibaankaas asaguna lacagtii laga qaaday iyo lacagtii ka baxday wuxuu isku dayaa inuu dib u soo cisho mooshin abuuro khilaafad abuuro markaas waxa ku kalifaysa ninkaas waxa ka baxday lacag badan laakiin habba waxay ku xiran tahay habba dadka daacadnimadooda dadka ergada loo xulayo waa inay ku soo doortaan qofka xildhibaanka ah aqoontiisa iyo kartidiisa laakiin ay si eegin intee lacag ka qaadanay hadda dhalinyarada inta badan ergada loo doortay aan aragnay inta ugu badan waxay ku leeyihiin ergada lacagba ka soo qaadanaa laakiin uma aadayaan inay soo saaraan xildhibaan garanaysa matali kara inta badan xildhibaanana waxay ka yimaadaan dibadda ama meelahaas laakiin wax deegaanka ah way ku yar yihiin marka inta badan waxaan jeclaan lahayn inuu nin dhalinyaro ah oo danta dalka u shaqeynaya inuu soo baxo ka soo garanaya deegaankiisa iyo waxyaalaha u dan ah inta badan xildhibaanada Puntland anaga naga soo baxa markay xagga tagaan dib uma soo laabtaan waxayna ku leeyihiin markii la weydiiyo maxay soo laabteen dalka wax ugu qaban weydeen inta badan waxay dalishanayeen in lacag ku soo baxeen ay ninka isinka ay lacag siiyeen oo inta badan ay ku soo baxeen dad ay yihiin lacagtooda ku soo baxay ku soo bixin cod marka waxaan rajaynayaa nidaamka one man one vote ka inaan u gudbi doono haddana dadka ergada loo xulayana waxaan rajaynayaa inay si daacad ah ay ku doortaan xildhibaanka ay dooranayaan ayagana bulshada metela waana ka baxay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa bahda Somali Channel TV su'aasha la weydiiyay waxaan uga jawaabayaa waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka Puntland inay doortaan shacab matali kara Puntland bahda qoondada dumarkana si inaan la dhaafin oo sidoo loo siiyo annagu marna cid iska fariisata xamar oo danaha xamar iyo danaha bahalka ka shaqeysa cid walba meesha laga doorto waa inay matali ka dhaa annagu cidii Puntland laga soo doorto waa inay Puntland ayatiinkeeda iyo mustaqbalkeeda ka talisaa intaas aan uga baxayo assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim maanta baaq waxaan u diraynaa golaha baarlamaanka baaqaan u diraynaa waxa weeye inay doortaan xildhibaano ka talinaya masiirka iyo cirib dalbeedka bulshada reer Puntland marka golaha baarlamaanka waxaan u diraynaa inay doortaan xildhibaano matali kara oo kana talin kara masiirka iyo cirib dalbeedka shacabweynaha ku dhaqan Puntland assalaamu alaykum waxaan u baahanahay in ay doortaan xildhibaanada Puntland wanaha xildhibaan ka shaqeyn kara danaha guud ee Puntland ama ku aan ahayn qolosiso shaqeeyaal ama aan ahayn masarka Puntland u shaqeyn karaya kaasaan rabnaa in la doorto baaqaasaan u direynaa Ahmed Abdirashiid Somali Channel Garowe